runtii mawduucan ii doortay waxaan u malaynayaa in badan baa laga hadlay laakiin waxaan rabaa mawduuc khaasa inaan taabto inkastoo waqtigeena uu yaryahay sidaad ogtihiin macallimiinta waxay haayaan carruurteennii bay haayaan culays fara badan ay naga xambaareen waxay barayaan kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala ay carruurteennii ay barayaan leylan wa nahaar hawshoodii ma qabsadaan beerahoodii ma aadaan shaqooyinkoodii ma qabsadaan waxay ku howlan yihiin oo ay ku mashquulsan yihiin ay ku luggo-an yihiin carruurteennii inay wax baraan maxay barayaan waxa ay barayaan waa afdalu lculuumi wax la barto kan ugu fadliga badan bay barayaan waa kalaamullah dadkii marka sidaas ahaa oo macallimiinta sidaasi ahaa maanta walaalayaal waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno inaan u abaalgudno abaalkoodii ma gudi karno laakiin inaan sheegno maxaa yeelay carruurteennii quluubtooda waxay ku buuxinayaan kalaamullaahi bay ku buuxinayaan marka adugu aad shaqaysanaysid ayaga shaqa ma aadaan ilmihii waxay noqonayaan ilmo oo xaafid ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankiisii baray waxaa sabab u noqday macallimiintaas marka xaq bay ugu mudan yihiin inaan u abaalgudno oo aan u ducayno oo xaqoodii aanan dafirin xadiid baa soo arooray ahlu sunanka ay wariyeen nasaa'i baan hadda ka xasuustahay xadiidka sanadkiisii xasan wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu xataa taraw annakum tukaafi'uunahu oo kama qaala sala allahu calayhi wasalam qofkii wanaag idin sameeya macruuf idin sameeya macruuf waxaa la yidhaahdaa waxa sharciga iyo qalbiga ku fiican ayaa macruuf la yidhaahdaa qofkii macruuf idin sameeya idin wanaajiya ixsaan idin sameeya fakaafi'uuhu yacni u abaalguda abaalgud siiya yaan la abaaldalaynin sidaasuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam hadday dhacdo oo aad weydaan waxaad ku abaalgudaan fadcuu lahu fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu u duceeya waxaad dhahdaan jazaaka allahu khayra sidaa dhaha ilaahay tabaaraka wa tacaala jannagay dhaha nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuuna barayaa wuxuu naga reebayaa inaanan noqonin dajisaad sidaas waxaan u leeyahay dad badan waxaan arkayaa waalidiin fara badan aysan fahamsanaynba waxa laga haayo ee culayska laga haayo iyo carruurtooda waxa la baraya aysan fahamsanayn ayib sidaa daraaddeed nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay haddii aad waysaan waxaad ugu abaalgudaan oo aad siisaan u duceeya ilaa weliba aad ogaataan inaad abaalgudeen micnaha waxaa lagu wada ducada u badiya ikhwaanii fillaah macallimiinta waxay muteen inaan u duceyno aan u abaalgudno wax welibo adduunyo oo xoolaha inaan siino xataa haddii aan siino waxa ay haayaan oo ay naga kaafinayaan weli ma aanan gudin duco unba maaragtay aan awoodnaa maanta maca alasaf aad baan ugu xumahay macallimiintii sidaas ay ahaayeen oo ilaahay qur-aankiisa ay xambaarsanaayeen maanta waxaa loogu bedelay in la aflagaato in xumaan lagu sheego in la xanto in la liido saas baa loogu bedelay maca alasaf waa dhibaato waa mushkilad inay haysataba macallimka qur-aanka xambaarsan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala baa kor u qaaday afdalu lkhalqi baa kor u qaaday haddaad adigu liido
liidnaanta aday ku iimaanaysaa ogow marka macallimiinay abaalkiini ma gudi karno waan idin ducaynaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum wa kathara allahu amhaalakum wa jacala allahu aljannata mathwaakum ducadaasaan idin haynaa maanta ayib intaa kadib waqti waa gabagabo waxaan ku soo khatimayaa intaasi waxay ahayd waa muqadima oo nafsadeyda iyo waalidiinta oo aan ku tarqiibinayay inaan macallimiinta darajadoodii aanan ilaabin waxaan ku xijinayaa tawjiih yar kelimad yar oo macallimiinta aan u jeedinayo macallimiinay waxaad ogaanaysaa inaad tihiin qudwa xasana inaad tihiin dadka way idin fiirsanayaan misbaax baad tihiin misbaax oo dadku ay iftiinsanayaan qofka mar hadduu yahay qudwa xasana hadduu yahay waxaa laga rabaa kontaroolkiisa inuu bato xagga hadalka inuu noqdo hadal fiican inuu noqdo xagga socodka inuu noqdo socodkiisi socod waafaqsan shareecada islaamka maxaa yeelay waa lagu dayanaya kelmad oo aad u liidata inuusan ku hadlin meelaha aan munaasabka ahayn inuusan istaagin waxaa la yidhaahdaa ardayga yata'adar bimucallimi qofka ardayga ah mucallimkiisa saamayn ayuu ku yeelanaya mucallimkiisa waa fiirsanaya waxaad ogaataa marka qudwa inaad tahay waa inaad is-ilaalisaa qowlkaada iyo ficilkaada waa inuu iswaafaqaa waxaa ku hadlaysid oo qowl ah iyo ficilkaada iswaafaji wanaag haddii dadkii aad amartay adigu bilow munkarka haddii dadka aad ka reebtay adiga ka har laakiin taas haddii aan lagaa helin ma noqonaysid xadiidka hadda la sheegay oo nabiga sala allahu calayh wasalam sheegay ma noqonaysid khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa laga wadaa ninka mucallimka ah alcaamilu bicilmihi oo cilmigiisa ku camal falaayo marka waxaan dardaarmayaa marka macallimiinta qudwa xasana ayaa tihiin dadkii way idin fiirsanaya waxyaabo aan laa'iq ahayn haddii aad samayso waxaa lagu leeyahay macallin fulaan baaba sameeyey qudwaa noqotay aayad socoto ayaa tahay waa lagu daliishanaya dhaqankaagii marka waa inaad hagaajisaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu daleeceeyey dadka oo culimada ah oo haddana aan ku camalfalaynin cilmigooda ilaahay baa daleeceeyey qoolkooda iyo ficilkooda ayaa iskhilaafsan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allah an taquluu maa laa tafcaluun dadka xaqa rumeeyeeno lima taquluuna maa laa tafcaluun maxaad u dhahaysaan waxaydan falaynin maxaad u sheegaysaan waxaydan idinku falaynin maxaad u sheegaysaan oo dadka aad u sheegaysaan kabura maqtan cinda allah kabura waxaa weynaaday maqtan min maqtin cara ahaan an taquuluu ay qowlukum hadalkiinii ayaa weynaaday oo inaad dhahdaan maa laa tafcaluun wax aydan samaynaynin inaad dhahdaan ayib meesha marka waxaan baraarujin lahaa ardayda qaarkood aayaddan markay ay ka hadlayaan ama ay fasirayaan si laxni bay u fasiraan kullay un dadaal bay ka tahay laakiin cabdi ahaan way qaldaan waxay yidhaahdaan kabura waxaa weynaaday maqtan car waxaa weynaatay sax ma aha maqtan yacni tamyiis way cara ma aha faacilka masdarkaas ayuu ku dhex jiraa kabura waxaa weynaaday maqtan cara ahaan waxaa weynaaday an taquuluu yacni maa laa tafcaluun ay qowlukum maa laa tafcaluun hadalkiina aad dhahaysaan waxaydan falaynin ayaa ilaahay xaggiisa cara ahaan u weynaatay waa daleeceyn oo loo daleecaynaayo dadka qoolkoodii iyo ficilkoodii iskhilaafay macruuf baad fartay ardaydiina waxaad ku guwaabisay
صلاة وقت غير هلوت كلو آذان كبركين وأما قشام مساجد الجلا أنا أمري معروف هذا الوحالة أكيد أنا بيلها تاني صلاة يوم تكلم وقلك مجلق على المسلمين بلا نكاس محمد هنا نكاس وركيسا وكسوقات بلا بل وحصو أروري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث وصحيحين يقيانا رسولك صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه حديث كان مقصود بقبينا إن شاء الله تعالى حديث كان وردك يا هي وطلعين يا منك تتك أمر معروف وخير كتتك أشيري منكر كتتك كريمي إسجنا خلافة يودين عمري قول كيس يفعل كيس بأس خلاف طيب مالت قيام من بالكين دولاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى للرجل يوم القيامة فيلقى في النار قل كاسا وحال ورد يا نارتي بالورد يا نارتي يا الورد يا والعياذ بالله نارتي مركي الورد فتنطلق أقطاب بطنه دربني بسرعة وحصوبها يبناك إيمانا من دعيرك علوشي سيكو جري أي بناك إيمانا أي صوتانا طيب فيدور بها يعني مركاسو لوريغيا يعني يجر وراءه كذاشي سيكو جيديا كما يدور الحمار بالرحى صدق مالك أما يعني رتقة يعني مركي رلك الوحي رسول وريغنا يوكل فيجتمع إليه أهل النار حقي سوحكوس أولورا أهل النار وهذا من اللي يقالون فضيحوا يوم تب للسرائر سرتي بابنان صوبعيت وعليه يا فلان شيخو ما يسي شيء يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر شيخنا دهين وحد أمر جرتي معروف منكر كان نقرأي جرتي محاكو دعيمان تعذابك أديك ألقوه بالله فيقول إليه بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتي معروف الأمر جري لما إيمان جري وأنهى عن المنكر وآتيه منكر كأيان ريبي جري أنا قال إيمان جري سومالي وحيد هذا مماذا وحالي هذا سومالي بين مشاكتور سدبدا غالبا وحيد هذا علماء العذاب عامل لما عذابه علماء العذاب عامل لما عذابه حتى يجونا وموقف كيوه نجي شيقها ولا يقيني ومعروف لها ومعروف كأمر جري منكر كريبي جري يا مان العذاب عامل كهر صارت وامعي يعني دكيو خيانة تاسمك وحنقول يا إخواني في الله معلمين في علماء البردهان يعني قدوة حسنة أيامنا وإن لك هنا وحا شيخني أنا وإن بالله بل صدا أدوكتهين قفك ويعني عالمك أو معلمك وددك يكون ديانيان وحيابها قار ومباحاتك أي حتى لو ديني وحياب مباحات اسكبرنا وقفك استعمالك يا إساقوا على اللي أكد وصل هديكو سمايا وركيس لما قادنا وأنك الله يقانو يعني أن مروءة نك إذا وحسنتها مخروم المروءة نك ليلا مع كاملة واحد مباعات هدي قفك يسوى عالي وعامل كاملة يسوى سوق تحسوعنا يروت عنو عوغا سنبوسو قدر صدو وحفيرنا يمار يسوى سوعنا يدوسنا وحكم لكن نك معلمك وقدوة حسنك أما شيقك هدي سلا أويا لدك ويفيرنا روتي يسنبوسي دوسكو در صدو
عقاد اللي فوق كدربيش وكل الليف ذلك ويساير شيخ ما محاكم بعيان ليه وواحد مباح صوما إن واحد لعن مباح ليه مع ذلك هذا نكان أو قدوة حسنة أتتك أي في سنة يعني هو مأبر قالوا الحديث كمصطلح الحديث ذلك كشقية هذا نك سداس وكالي الحديث كيس ضعيف ونقولي لما قارنا واحد مباحات سميه لكن يعني ميل المناسبة هنا يكون سميه حديث كيس ضعيف لما أمينك فقهاء سداس وكالي شهادة كيس لما أخبرني هذين كي مركب معلم كجرب وسوقات تصال لبعض جرب وسوقات يبوم مير أو جلبيه سي أو فيدان وصعد معلم كيوان معلم ما تسوى يا ولد ولا فيرنا طيب نر اللقاء وهم مباحات لكن إن كان سجع عادل ملها لقوم يقان مركا وحنقول جيدا لينك دتك قدوة حسن ويا هاي إسئلالي بدن بقباي ميلا كلا يسكيل إلالي oo marka hadalkiisa dhinac kasta uu kontarool waxaan u maleynayaa warku waa idinku dheereeyay halayga cafiyo insha Allah dheeraantaasi 10 daqiiqo lahay waa ku darsaday marka insha Allah ta'ala fajazakumullahu khairal jazaa wa shakara Allah min husni istima'ikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh